hadba had kiciya qaarad waliba qoomkeeda qiso walba qarnigeeda waa barnaamij aan ku eegayno xaaladda qurba joogta Soomaaliyeed markay joogeen Afrika waxyaabihii ay ku fikirayeen iyo markay yimaadeen Yurub waxyaabihii ay kala kulmeen kala soco Somalisat TV aadka iga daadigi waayay wala waxa kamid ah run ahaantii qofka bini'aadanka Ilaahay waxa uu abuuray inuu caabudo wama khalaqtu jinna wal insa illa liya'budun bi Ilaahay qofka waxa laga yaabaa inuu intaas oo dhan soo maray oo aan u imi Yurub ina aan adduun soo raadsado laakiin waxyaabaha aan meeshan ugu imi aan ku arkay waxa aan ogaaday in qofka iyo Ilaahay ay si kala fogaanayaan waxyaabaha aan aad kula yaabay waxa weeye dad masaajid aan ku wada tukano oo muslimiina ayaa waxyaabaha aan ku arkay waxa kamid ah waxa ay ku oranayaan 8 saacadood baan u shaqeynaa maalinta jimcaha kale nalooma ogola inaan masaajid ka tagno qofkuna waxa fiican waxa uu taransanayo hadii iimaanku ka dhaawacmo iyo hadii adduun weydo adduunyada waa la qaatay ay ku qurux badan tahay marka run ahaantii aad iyo aad bay kala fog tahay waxa dalkeena yaala iyo waxa qurbaha yaala Soomaalida heesba waxay tiraahdaa haybad waxaad ku leedahay dalkaaga hooyo qof qurba jooga ayuu baa maanta garanaya inkastoo dhalinyar fara badan oo ay daawanaysaa aanay maanta iga rumaysanaynin marka aan caynka leeyahay laakiin haddana qof qurba jooga ayuu baa garanaya wadanimada waxa ay leedahay meel wali joogaanba inuu qurbuhu dhibaato badan yahay inuu maxaa ku dhaca marka aad dhalinyartu joogto wadan qof yar iyo qof weyn baa la takoorayo basaska aan raaci karin si xun ay kula dhaqmayaan ku eegayaan wadankaaga aad ku qurux badnayd wadankani yahay wadan dhibaato badan oo barafkiis dhacayo caruurtaada dhashay laga qaadayo hadii ay leedahay ilmihii baa la wareysanay miyaa lagu dilaa miyaa lagu yeelaa caruurtaada sabab aan laga qaadayo marka dhibaatada Yurub way adagtoo badantay waxaan jeclaan lahaa in wadankiina ku nagaataan oo dhisataan oo maxaa ku dhaw qalbiyad cilisaan oo qurbaha iska ilowdaan annagana dhibta nagu haysata Ilaahu baa xisaabi kara waxaan ka dardaarmayaa dadka Soomaaliyeed inay iska daayaan qabyaaladda diin ahaan ma wanaagsana dhaqan ahaan ma wanaagsana qabyaaladu qadactu min naar weeyaan qabyaalada Ilaahay wuxuu soo rogay in la isku garto bes laakiin ma aha sida Soomaalidu ay ugu dhaqanta ma aha qabyaaladu waxa loo qabiilku waa wax la isku garto bes weeyaan qabyaaladu ta halka ay dhigtay maanta weeyaan wadankeena ku weynay qarannimadeena ku weynay hooyooyinkeena ku goobloomeen dadkeena ku baaba'ay tahriibta inoo ku wacan weeyaan qabyaaladu marka qabyaalada in la iska jiro weeyaan oo qaran iyo qabyaalada waan qarannimada laga raaca weeyaan iyo danta Soomaaliyeed laga raaca weeyaan dadka Ilaahay waxaan ka baryaynaa in ummadda Soomaalida inuu Ilaahay isfahansiiyo inuu Ilaahay afkaransiiyo Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu Ilaahay wadankeena nabad nooga dhigo Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu Ilaahay Soomaalinimada iyo qarannimadeena iyo sharafteena iyo magaciisa Soomaaliyeed Ilaahay inuu noo soo celiyo iyaan Ilaahay ka baryaynaa markaasi wadanka qurbahana dib iyo dheef buu leeyahay inkastoo ay dhibtiisu badan tahay waxa lagu leeyahay wadankaas afraa ka soo qaaday oo aad xaq ku leedahay wadankiina wax nolol ku haystid waxa lagu siyaa lacag professional oo cuntadaada iyo jiifkaaga ah wax barasho la'aan adigiyo macnaha ku xisaabtan jiray subaxdii dad Afrika joogto shaqada u jarmaado ama profession wax un aabawsho male tan waxa dhici kara in habeenkii soo jeedo wax muraajacaad ku soo jeedo maalintiina iska hurdo أنا وعندي على إن عادي أدبك لدوانتها وفكرتي عن كتبي مركان أفريقيا جو يوروب يتنا كل ميان مركان ميان يوروب عادي أدبك على الله كي أرض ينو وحبرشدي سكوته كي مستقبل كيسك وضع أنا يعني إنه مستقبل كيس وضعه قربة إنه أسو أردن قربها إنه فائدة اللي أسو أردن إنه أولين أنا جا هذا تصالحان أنا جا كسك هذليا قربها مركان أنا جا عن ودن كيجي شوقي si qatara way ila ahayd wadankaygina waa nacay waxaan u soo ordayay qurbaha sidan hadaan moodayo ma soo ordeen TV walba tayadiisa wari walbana way aragnimadiisa waa barnaamij aan ku eegayno xaaladda nololeedka qurba joogta Soomaaliyeed markay joogeen Afrika iyo markay yimaadeen Yurub ka daawo Somalisat TV